waqti wacan iyo warsan saaxiibada galwareed xog culus oo farxad gelisay waalidiin walwalsanaa waa askartii Soomaaliyeed ee ku maqnaa Eritrea oo saacadaha soo socda Muqdisho soo caga dhiganaya fashil ay mucaaradka dhex fadhiyaan ciidamo diyaarsan awood leh qaba tababar casri ah oo Soomaaliya yeelatay tirada askarta cadeymo la helay taliye Generaal Odawa oo ka farxiyay hooyooyinka iyo ehelada askartii maqnayd iyo faafahin buuxda oo qodobkan ah ayaan ku haynaa warbixinteena galwareed ee maanta oo axada balse daawadayaal like saara muuqaalkan marka hore siina share gareeya warbixintan si dhammaan ehelada iyo dadka oo dhan warkan uu gaaro waa hagaag muddo dhowr bilood ah oo ay soo tirayeen warar la ogaaday in ay dhammaantood been abuur ahaayeen ayaa waxaa shalay ilaa iyo xalay banaanka u soo baxay cadeymo farxad geliyay hooyooyin laga ooyisiiyay balse maanta ilintii murugada ay u bedeshay ilin farxadeed qosol gariir iyo dhoola cadeyn kadib markii dowladda Soomaaliya mas'uuliyiin kamid ah ay xaqiijiyeen in uu soo dhamaaday tababarka wiilal dhalinyaro ah oo ku maqnaa Eritrea kuwaas oo hadda ciidan awood leh oo Soomaaliyeed dalkii diinta anfaca noqonaya qaar kamid ah waalidiinta oo shalay galab la sameeyay xiriir ayaa galwareed u sheegay in lagu wargeliyay inay u diyaar garoobaan soo dhaweynta wiilashii ay u ooynayeen muddooyinkan hooyo Firdowso Axmed oo kamid ah waalidiintaas ayaa iyadoo farxad la ooyeysa galwareed ku tiri hooyo ma qiyaasi karo heerka farxadayda waayo wiilkayga oo aan ka murugeysnaa ayaa layla soo hadalsiiyay wuxuuna ii sheegay in tababarku u dhamaaday Muqdishona imaanayaan oo si weyn loo soo dhaweynayo sida maamadan ay u sheegtay galwareed xogo hoos oo aan helnay waxa ay sidoo kale muujinayaan in Generaal Odawa Yusuf Raage iyo madax sare ay u socdaan Eritrea si tababar socday 2 sano loogu soo xiro ciidamada awoodda badan ee Soomaaliya yeelanayso waa ciidan adag waa geesiyaal carbiyeeyay waana askar ku filan difaaca qaranka iyo sidoo kale nagu yiri xildhibaan kamid ah guddiga difaaca ee baarlamaanka Soomaaliya saraakiil sare oo ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa galwareed u sheegay in tirada askarta ku maqnayd Eritrea ee tababarka u soo dhamaaday ay gaarayaan 7,000 oo askari kuwaas oo xitaa u diyaarsan sugitaanka amniga doorashooyinka Soomaaliya ciidamada Soomaaliyeed ayaa bilihii la soo dhaafay laga faafiyay warar badan oo been abuur ah kuwaas oo dowladdu ku eedeysay xubno siyaasiyiin mucaarad ah sargaal la hadlay wuxuu sheegay in mucaaradka ay ku fashilmeen been ka sheegista askarta loo qaaday tababarka oo xitaa mar la faafiyay in dagaalkii Tigray iyo Itoobiya ay ku dhinteen wiilal Soomaaliyeed oo tababar loogu qaaday gudaha dalka Eritrea balse dhacdooyinkan nooydil ayaa noqday kuwo been abuur ah lagana lahaa ujeedooyin siyaasadeed iyo in la fashiliyo ciidamada qaranka dalkeena Soomaaliya lana siyaasadeeyo dowladda federaalka Soomaaliya oo ka duuleysa dhacdadan iyo sidoo kale wararka been abuurka ah ee mucaaradku ay faafiyeen ayaa gabi ahaanba ka gaabsatay ka hadalka wiilasha tababarka loogu qaaday Eritrea iyo halka jaan iyo cirib ay dhigeen dhowr bilood oo war iyo wacaal laga la'aa dowladda eedayna dusha loogu tuurayay balse madaxdu ay ka gaabsadeen ayaa ugu dambeyn si hoose oo kadisa loo farxad geliyay waalidiintii oo oonayay carruurtooda taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo mas'uuliyiin kale ayaa ka shaqeeyay in ciidamadan oo muddo la hadal hayay marar dhowr jeerna been abuur laga sameeyay marka Muqdisho ay soo gaaraan loo sameeyo soo dhaweyn ballaaran oo ay ka qayb galayaan waalidiinta dhalay askartaasi iyo sidoo kale mas'uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya saacadaha soo socda garoonka diyaaradaha Cade ee Muqdisho ayaa la filayaa in laga soo dejiyo 7,000 oo askar oo tababar ku soo qaatay Eritrea kuwaas oo warkooda la laasanaa muddo 2 sano ah asiyeeshee tani waxay farxad gelinaysaa hooyooyin iyo aabbayaal badan oo in badan ka oynayay warbaahinta isla markaana dowladda eedeyn dusha ka saarayay balse marka la hadalsiiyay qaarkood carruurtooda ayaa waxay dareemeen farxad iyo dowladnimo isla markaana Soomaaliya markan ay ka hana qaadayso dowlad awood leh shacabka iyo dadkana u cadaalad sameynaysa sida ay noo sheegeen waalidiinta qaarkood oo nala hadlay xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka ah
ayaa in badan baraha bulshada ku faafiyay inay geeriyoodeen askar tababar lagu qaaday Eritrea oo Soomaali ah kadib markii ay ka qayb galeen dagaalkii Tigray iyo dowladda Itoobiya ka dhex qarxay isla markaana wiilasha Soomaaliyeed ay ka qayb noqdeen ciidamadii ka dagaalamay Tigray hase yeeshee 7,000 askari ee Soomaaliya laga qaaday horaantii sanadkii 2019 ayaa markan dalka dib ugu soo laabanaya iyagoo aan qofna ka dhiban qofna ka dhaawacmin sida xogta ay inoo sheegayso mucaaradka dawladda ayaa markan fashil dhexwanaya mana la oga waxa ay ku hadli doonaan marka ciidamadan Muqdisho ay soo gaaraan soo dhaweyn balaaranna loo sameeyo isla markaana la fashiliyo ama si rasmi ah loo beeniyo mucaaradka hadalladoodii oo si muuqaal ah shacabka loo tuso in dawladdu aysan iibsan askar Soomaaliyeed isla markaana aysan jirin askari Soomaaliya oo ka dagaalamay dalka Itoobiya mucaaradka qaarkood ayaa la sheegin haddaba ay ka walwalsan yihiin hanaanka dawladdu ay u wajahayso ciidamada Muqdisho imaanaya Eritrea laga soo qaadayo iyo waxa ay u sheegi doonaan taageerayaashooda mar haddii ay beenoobeen hadalladii sanad iyo bar ku dhawaad ay ka faafinayeen ciidamada Soomaaliyeed ee tababarka loogu qaaday Eritrea dadka falanqeeya arrimaha ciidamada ayaa galwareed u sheegay inaysan wax weyn ahayn in ciidamo tababar loogu qaado dalka dibadiisa gaar ahaan Eritrea iyagoo tusaale u soo qaatay in ciidamada Soomaaliyeed intooda badan tababar loogu qaadi jiray dalka dibadiisa sida Uganda, Ethiopia oo loo yahay Soomaaliya cadaawada kala dhaxayso iyo wadamo kale oo Afrika iyo Amerika ah waxaana waxa la yaab noqotay dhaleecaynta mucaaradka ee ku aadan in ciidamada Soomaaliya tababar loogu qaaday Eritrea lana waayay halka ay ku dambeeyeen hase yeeshee waxa la isweydiinayaa sababta loo ogolaaday in ciidamada Soomaaliya loo qaado dalka Itoobiya tababarna ay ku soo qaataan lana diiday Eritrea in ciidamo kale tababar loogu qaado taasi oo ah su'aal aysan jawaab u helin xubnaha mucaaradka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ka go'an dhisidda ciidamo awood leh oo qaranka Soomaaliyeed uu yeesho kuwaas oo lagu tababarayo gudaha dalka iyo dibadiisa xitaa dawladihii ka horreeyay dawladda madaxweyne Farmaajo inta badan ciidamada Soomaalida waxa tababar lagu qaadi jiray dalka dibadiisa balse maanta marka la fiiriyo waa ay soo yaraanaysaa tababarka ciidamada loogu qaaday dalka dibadiisa marka laga reebo ciidamo si gaar ah ama taqassusaad gaar ah la barayo kuwaas oo qarankan muhiim u ah meelo muhiim ah amnigooda sugayo taasi oo u baahan khibrad iyo tababar sare in la siiyo ciidamadaas taasina ay keentay in dalka dibadiisa loo qaado ciidamo Soomaaliya sida aynu xogta ku helayno ciidamadan ka soo laabanaya Eritrea ayaa ah kuwa diyaarsan awoodna leh qabana tababar casri ah isla markaana wax ka bedeli kara xaaladda amni darre ee ka taagan guud ahaan dalkeena Soomaaliya xogta ayaa sidoo kale sheegaysa in ciidankan ku qalabeysan qoryaha fudud iyo kuwa culus iyo gaadiid dagaalba Muqdisho ay soo gaari doonaan saacadaha soo aadan waa ay beenooday hadalladii been abuurka ahaa ee laga faafinayay askartan Soomaaliyeed sidoo kale waxa markan murugadii iyo urkutaaladii ay ku reebeen hooyooyinka Soomaaliyeed carruurtaas la sanaa ay markan ku beeraysaa dareen farxadeed iyo jawi ka bedelan sanadihii la soo dhaafay oo ay ka walwalsanaayeen carruurtooda halka jaan iyo cirib ay dhigeen hase yeeshee markan waxaa caasimadda soo gaaraya waalidiinta carruurtii ay dhaleen oo markan qaranka iyo dadka iyo diintaba difaacaya isla markaana ay ka muuqato haybad iyo sidoo kale wadaniyad iyo in dalkan ay ka difaacaan cadowga dibadda iyo kuwa gudaha ee beylahda ka dhigi raba dalkeenan hooyo ee Soomaaliya waa guul weyn oo soo hooyatay shacabka Soomaaliyeed iyo qarankaba haddaba daawade adigu maxay kula tahay sayse u aragtaa go'aanka dawladda fikirkaagii waxay kula tahay daawade noogu reeb qaybta hoose ee commentiska tan iyo kulan dambe nabadgelyo